xasaasiyadda waa problem haysta in badan oo bulshadeena ka mid ah qaybahooda kala duwan. xasaasiyadda waxay ku dhacdaa xubno badan, sidaas darteed waxay ku imaan kartaa habab aad u fara badan. insha allah maanta waxaa soo koobi doonaa dhibaatada xasaasiyadda neefmareenka iyo waxyaabaha keena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود iyo neefmareenka ama cudurrada ku dhaca feeraha. haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe si aad noola socoto mar walba fadlan riix gambalaalka. maanta waxaa ka hadli doonaa dhibaatada xasaasiyadda neefmareenka iyo waxa keeno. ereygan xasaasiyadda ama allergiga macnihiisu waa falcelin, waa jirka oo ka falcelinaya waxyaabaha uuna aqoon ee xasaasiyadda uu ka qaadayo kana imaanaya bannaanka deegaanka. siduu ku soo galaa waxyaabaha jirkeenna xasaasiyadda uu ka qaado? badanaa waxay la socdaan wax walba oo jirkeenna soo galo sida hawada, cuntada, taabashada iyo wixii la mid ah. maanta ma ka hadli doonnaa xasaasiyadda cuntada iyo tan maqaarka. waxaan maanta ka hadli doonnaa oo xoogga saari doonnaa xasaasiyadda neefmareenka. waxyaabaha xasaasiyadda laga qaado badankoodu waxay ka kooban yihiin borotiinis ku jira geedaha qaar sida cawska, cuntada, dhogorta maqaarka, busta ama habaaska, saxarada cayayaanka, biraha qaarkood, waxyaabaha qaar ee laisku qurxiyo badanaa ay dumarka isticmaalaan, iyo dawooyinka qaar. haddii intaas aan soo sheegna mid ka mida uu jirkaaga soo galo xasaasiyadna aad ku qabto, waxaa la dagaalaya difaaca jirkaaga. kadibna waxaa muuqanaya calaamadaha xasaasiyadda sida bararka, inay gaduudato meesha, diif, candhuuf fara badan, qandho, daal iyo jir xanuun iyo jirka oo daciifo. xasaasiyadda neefmareenka badanaa waxaa sababa in hawada qofka uu qaadanayo ay u soo raacdo waxyaabaha uu allergiga ku yahay ama xasaasiyadda uu ka qaadayo, taasoo ku keenaysa qofkii in neefmareenkii uu ka dhasho caabuq. meelaha ugu badan ee waxyaabaha aad xasaasiyadda ku qabto kugu soo dhuuman karaan marka laga hadlayo xasaasiyadda neefmareenka waa sigaarka, qaaca sida qoryaha la shido, ama jikooyinka, hawada meelaha geedaha badan iyo busta faraha badan. waxaana ugu sii daran qofka marka uu ka shaqeeyo meelahaas oo kale, sida haddii uu qofka ka shaqeeyo goob shiishad lagu cabo kale, ama meel aad sigaarka loogu cabo kale, ama jiko kale hadduu qofka ka shaqeeyo, ama qof ka shaqeeyo dhuxusha la shidoo kale. qofkaas haddii uu xasaasiyadda neefmareenka qabo halisuu ku jiraa markaas. waxaa kaloo aad u daran marka laga hadlayo xasaasiyadda neefmareenka busta guryaha, sababtoo ah busta guryaha waxaa ka buuxa waxyaabo badan oo kicin kara xasaasiyadda. sidoo kalena waa meesha ugu badan oo qofka uu joogo, maadaama uu habeen walba u soo hoyanayo guriga. meelaha waxyaabaha xasaasiyadda ugu badan laga qaado ay ku jiraan waa meelaha huurka badan iyo meelaha mugdiga ah sida sariiraha hoostoodoo kale. waxaa kaloo xasaasiyadda neefmareenka laga qaadi karaa dhogorta xoolaha, waxayna aad ugu badan tahay dadka ku xanaanaysta xoolaha guriga sida dadka ku dhaqda guryaha ariga, lo'da iyo xayawaanada kale. sidoo kale waxaa jira dad dhaqdo oo haysta yaanyuuro, eeyo iyo xayawaano la mida. xaaladda xasaasiyadda waxay aad uga dartaa xilliyada qaar sida xilliyada huurka iyo xilliyada qaboobaha. waxaa kaloo badiya xasaasiyadda haddii uu qofka joogo waddan aad u horumarsan, weliba qofka deggan meelaha ay ka dhow yihiin warshadaha. waxaa qofkaas uu aad ugu badan yahay in hawo wasaqa mar walba uu ku lugeeyo, ama mar walbeetu uu ku dhex nool yahay hawo aad wasaq u ah, qofkiina markaas caafimaadka sanbabkiisa aad ay u saamayso. waxaa jira cudurro aad u fara badan ee xasaasiyadda keeni karto marka laga hadlayo neefmareenka, laakiin labada cudur ee ugu badan ee neefmareenka ku keeni karta xasaasiyadda waa naqaska iyo sanboorka. cudurka koowaad ee naqaska, qofka marka uu qabo naqaska, xasaasiyadda waxay saameynaysaa tubooyinka neefmareenka, waxayna dhalinaysaa caabuq iyo barar, taasoo ciriiri ka dhigaysa qofkii neefmareenkiisa, waxaana aad u adkaanaya inuu qofki si fudud uu u neefsado. waxaad ku arki kartaa calaamadaha sida qufac, neef shanqar leh, qofkiioo xabadka ciriiri ka dareemaya, neefqabad iyo xab fara badan. naqaska wuxuu ku dhici karaa da' walba sida qof weyn iyo cunug yarba, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo fursadaha qofka uu ugu dhici kara naqaska sii badinaya, sida dhaxalsidaha. tusaale, haddii waalidiintaada qof ka mida uu qabay naqas, waxaa jira fursad badan uu kugu dhici karo cudurkaas. sidoo kale haddii labadaada waalid qof ka mida uu qabay xasaasiyad, waxaa jira jaanis adigana uu kugu dhici karo xasaasiyadda. cudurka labaad, sanboorka. sanboorka waa xasaasiyad ku dhacda sanka iyo xubnaha u dhow. badanaa waxaa la arkaa xilliyada qaar sida wakhtiga huurka iyo qaboobaha.
xasaasiyadan badanaa waxaa laga qaadaa busta guryaha iyo hawada geedaha ka timaada. waxaa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology sheegeen in dadweynaha adduunka ku nool 10% ilaa 30 inay qabaan sanboorka ama allergic rhinitis. calaamadaha lagu garto waa hindhis fara badan, sanka oo biyo ka socdo, sanka oo xirmo, iyo sanka oo cuncuno qofka. waxaa kaloo la arki karaa ayadana qufac, dhuun xanuun, indhaha oo barara qofka, sidoo kale indhaha oo cuncuno. mararka qaarna waxaa arki kartaa in qofka indhihiisa ay biyo ka socdaan ama ilin ay ka socoto, madax xanuun, maqaarka oo cuncuno qofka, iyo daal fara badan. waxaa laga yaabaa in calaamadahaas oo dhan aa wada aragto marka aad sanboorka qabto ama qayb ka mida aad aragto. waxyaabaha khatarta xasaasiyadda neefmareenka guud ahaan kugu badin kara waxaa ka mid ah cabista sigaarka, cabista shiishadda, qaaca warshadaha, wasakhda hawada, cimilada qabow, huurka, dabaysha badan, waxyaabaha la buufiyey sida barfuunka iyo hair sprayga, qaaca qoryaha la shito. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahanteen waxyaabaha xasaasiyadda kicin kara kana fogaan doontaan insha Allah. intaas waa tala caafimaad. wax walba si aad u qabato waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay, og tahay. sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, qof walbana uu heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan. insha Allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo aad muhiim u ah. wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga, sidoo kale noogu soo dir commentiga mawduucii aad doonaysa in laga hadlo. si aad mar walba noola socoto fadlan subscribe saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. waa inoo mar kale fiidiyo kale insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.